waxaan shirkan jaraa'id maanta aan u qabanaynaa inaan ka hadalno xaaladda uu dalka marayo. waxaa la joogaa saa la socotaan 3 sano ayaa u ilaatay madaxweynaha talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta muddo-xileedkiisii uu galaya sanadkii 4aad oo ah dabayaaqada muddo-xileedkii loo igmaday dalkan inuu hogaamiyo. waxaan markii inaan isdul taagno 3 sano kadib meesha uu dalka marayo iyo halka uu dalku taagan yahay inaan isdul taagno waxa la filan karo sanadka dhiman iyo waxa ay tahay inaan Soomaali ahaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta siyaasadda ku jirta iyo inta kale oo maaragtay kulaasho siyaasadda wax isla eegno xaguu dalkeena maraya sababtoo ah dad badan oo ku qanacsan waxaa jira qaladaadka iyo faalxumada ee dawladda sameynayso laakiin ogol in fursad la siiyo inay dawladdu dhameysato mandate-keeda ama muddo-xileedkeeda laakiin dadkaas waa saxsan yihiin waana ku raacsanahay sanadka u dhiman dawladdu inay dhameysato laakiin ogaada 4 sano rajiim kasta ama nidaam kasta ee xukun talada intuu joogay wuxuu ka tagaa raadayn mid togan ama mid taban intaba. Soomaalidu waxay tiraahdaa ayax tag ee la reeb. dhibaatada ay kooxda hadda talada haysta geysatay dalka raadka ay ku leedahay ee taban sanadaha kale ayaga ka dambeeya ee soo socda waa weyn maaha dhibaatadu inay ku egtahay sanadaha ayaga ay joogaan muddo-xileedkooda laakiin saameyntana waxay ku yeelan doontaa sanadaha naga dambeeya. saa la socotiin markii la doortay madaxweynaha ballanqaadyo fara badan ayuu ka sameeyay baarlamaanka ma raba inaan ku qiimeeyo ballanqaadyaas wax sababtoo ah waxaan u arkaa inay ahaayeen ballanqaadyo aan macno weyn ku fadhinin arrimaha Soomaaliya ee murugsanna wax ka qabanay inaysan ahayn ii muuqday maalintaas oo ballanqaadayay oo ahayd jidadka ma xiri doono safarro ma aadi doono waxay ma aragtay qofkii qarax soo sheegay lacag 100 kun siinaya dibaddan u dhoofinaya guryaha dum waa dhisaya xildhibaanada guryaha inay dhisaya wax noocaas aniga macno weyn ma sameynayaan wax aan wax ku qiimeynayana runtii ma aha ama maanta qiimeynteena qaybka ma aha hal wax un baan ballanqaadkiisa soo qaadanaya inuu yiri waxaan noqonayaa nabadoon dalka aan madaxweyne u ahayn laakiin nabadoon u ah taas un baan ka soo qaadanaya wixii ballanqaad uu sameeyay anigu waxaan halbeeg aan wax ku eegayno ama aan wax ku qiimeynayna xisbi ahaan ama shakhsi ahaanba ma aha waxyaalaha uu madaxweynaha ballanqaaday midna kuma jirto waana ku celinayaa anaga markii horeba nooma ahayn wax lagu qiimeyn kara ama mushkilada Soomaaliya lagu furdaami kara ma ahayn laakiin waxaan wax ku qiimeynaynaa waxyaalaha dalka u yaalay qarankan culaysyada u yaalay maxaa laga xaliyay maxaa laga qabtay waa mid aan wax ku qiimeynayno. madaxweynaha markuu talada iimaanay wuxuu u yimid dalka oo 5 maamul goboleed leh 5taas maamul goboleedna tala wadaag ay leeyihiin masiirka dalka iyo ay ka talintiisana ay ka tashadaan wuxuu u yimid dadka Soomaaliyeed oo ka soo kabanaya colaado ragaadiyay dagaalo ahli ah ama kuwa diineed ha aadaan ama kuwa qabiilad ha aadaan intaba ay ragaadiyeen walina qaarkood ay socdaan oo kuwii shabaabka ay si xooggan u socdaan dalka u yimid ka soo kabashadaas waxay keentay dadka Soomaaliyeed inay dhistaan wax la yiraahdo ra'samaalkoodu bulsho inuu si tartiib ah oo u soo kabto oo ay timaado dadku inay is aaminaan ay kalsoonida ay si tartiib u soo noqoto kalsoonida dadka lagu qanco dawladnimada inay tahay waxa dalkan ummadan jiritaankeeda badbaadi kara inay tahay dawladnimada inaan adduunkan globalka isku xiran sida kaliya ugu noolaa karnada inay tahay inaan noqono qaran midaysan dastuur leh ciidan qaran leh iska madax baneeya ciidamada ajnabiga ee dalka jooga ay ka tagaan ayaga dawladnimadoodii qarnimadooda ay soo cishtaan saasay dalka Soomaaliyeed ay ku taamayeen taasa marka waxay keentay inta si tartiib ah ra'samaalkii bulsho u soo noqdo is aaminaadii u soo noqoto dadka ay isku soo dhawaadaan qarannimada ay u soo dhawaadaan ra'samaalkaas meesha yaala ayaa wuxuu keenayay in la isku dul qaato
in wax badan la iskugu sabro in wax badan la xeeriyo in dadku aysan u noqonin mushkiladooda inay gacan ka hadal ay ku xaliyaan ama ay ka jawaabaan ficilada aysan oo xadgudubka u arkaan inaysan uga jawaabin si aysan uga jawaabin cunfi ama gacan ka hadal ama si rag iska dhicisa aysan uga jawaabin ee marka si mas'uuliyad dadku ay u tixgeliyaan arrimaha dawladnimada iyo dib u dhiska ay u tixgeliyaan waxay kale dadku ay soo gaarayeen in hay'adahooda dastuuriga ay soo yara aaminaan oo inay baarlamaan leeyihiin inay madaxweyne leeyihiin inay garsoor iyo maxkamado leeyihiin inay maaragtay aqal sare sameysteen in dad dawladnimo iyo sharci iyo dastuur doodii ay noqotay qodob dastuuri iyo qoraal iyo shir jaraa'id iyo xisbi in la sameysto hanaankaas wadanku oo ku socday maanta laakiin 5 sano kadib maxaa wadanku oo ku socdaa ayaan rabnaa inaan isweydiino oo wax iska weydiino wax ka dhahno koow qodobada asaasiga lixan ku soo koobaya dawladda laga rabay waxay ka qabatayna waa isla qiimeynayna koow waxa laga rabay dastuurka inay dhameystirto sababtoo ah dastuurka wuxuu asal u yahay heshiis bulsho oo dadkan ay ku wada joogi karaan dalka saa ogtihiin rejiimkii 12 sano dalka xukumayay ee militariga ahaa dastuurkii 60kii Soomaalidu u codeysay ee aftida la siiyay uu laalay warqado kacaanka uu soo saaray yaa dastuur dalku ahaa jiray ilaa 79kii dastuurkii la sameeyay dastuur dadka laga tashtay oo dadku ay u dhamaayeen oo dimuqraadiyana ma ahayn saan wad ognahay saas daraadeed dastuurku waa aasaaska ama waa budhiga ama waa gundhiga dawladnimada Soomaaliya waa sababtoo waxa dadka isku haaya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxa isku aaminaan waa waraqaas arkaysaan oo dastuurka adduunkan asaga wuxuu u yahay foundation ama wax saldhig u dastuurkaas lama dhameystirin tilaabna looma qaadin ilaa haddana lagama wada xajoonin arrimihiisa muhiimka oo xiriirka dawlad goboleedka iyo dawlad federaalka haday tahay qaab dhismeedka xukunka dalka haday tahay sida kheyraadka dakhliga ama maaragtay resource-ka ama waxa dalka soo gala loo wadaagayo sida maaragtay talada iyo awoodda la isku dhaafsanayo waxa soo dhan dastuurka qeexa aqdi bulsho waa heshiis bulsho asagii tilaab looma qaadin labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran Soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dalka badbaadiyaan ama aysan mas'uuliyadda kala wareegaan ciidanka AMISOM ee maaragtay hadda annaga aan ku joogno awoodiisa talada dalka lagu joogo inaan ka badbaadino oo ciidan qaran Soomaali oo qarannimada iyo midnimada iyo madaxbannaanida Soomaali ilaaliyana in la dhiso dawladdu way ku fashilantay wali waxa loo yahay ciidan ajnabiga marti loo yahay oo sida ogtii hooyga madaxweynaha iyo xafiiskiisaba ayaga wali ilaaliya waxa kale oo lala imaanin qorshe amni oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracana lagu baabi'iyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaadsiiyo artidaasna dawladda lama aysan imaanin wax qorshe amni ee dawladda la timid oo qaran ma jiro dawladdu wax wada hadal dhab lama gelin walaalahan Soomaaliland lama gelin waa qodobada asaasiga oo dawladda looga fadhiyay si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin qodobka lixaad dawladdu ma aysan shanaadaha rabaa ma aysan sameeynin heshiisiin ka dhalata saa ogtiin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaadka maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas waxay u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo iyo dib heshiisiin guud oo dadka Soomaaliya loo sameeyo dawladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin mid lixaad waxa waa siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka ku soo kordhay gobol ku soo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska Afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeed oo fadhisa oo miisaan leh oo ku samata bixi karnana ma aysan keenin waxay ka dhamaaweysay dawladdii saddex madaxweynaha Itoobiya Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya oo shiraayo oo leeyahay waxaan sameynaynaa saddex geesood iskaashi dhaqaale aan sameynaynaa in ay intaas ka soo dhamaaweysay dawladdu marka shaqooyinka muhiimka ee laga rabay ee lixda ee dadka Soomaaliyeed ka filayeen kuwaas ay ahaayeen oo wax ku qiimeynayna anaga maanta lixdoodii maxaan ka haynaa waxaan ka haynaa oo cad
oo maanta yaala oo dawladdu aysan qabanin in aan ognahay maanta inay kalsoonidii dadka Soomaaliyeed ee soo kobcaysay ee sida tartiibka soo dhismaysay maanta inay dunsan tahay waxaan haynaa dadkii inay qarankii inay ku qancaan oo ay aaminaan qarannimadii aysan maanta jirin oo la hayninaan maanta aan hortaala oo dadkii Soomaaliyeed ka aamin baxeen dawladnimadii markii lagu takrir faray laga aamin baxay waxaan haynaa in beeshii caalamka iyo dadkii Soomaaliya caawinayay oo qoys taagan ayaan haynaa oo hadda arkaysan waraqo iska daba dhacayo oo la leeyahay hal heshiisiyo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada waxaan haynaa in ciidankii yaraa ee hortood la unkay ee qarannimada Soomaaliya iyo ciidan qaran oo loo unkay in loo isticmaalayo deegaano nabad ah oo degan sida galgaluud iyo gedo hadda waxa ka socda aan haynaa oo beelihii Soomaaliyeed colaad lagu dhex abuurayo ayagoo halkaas ay fursado uga soo dhalanayaan shabaab oo ciidankii shabaab lagu dagaalami lahayna lagu deegaano nabada lagu dagaalayo oo shabaab halkaas ka helayaan fursad aan balala dagaalaynin iyo dagaaladaas qabaa'isha ay colaadaas waxa ka dhasha dadka gocashada iyo tabashada iyo caqdada ka dhalatana inay noqonayaan dad shabaab garab weydiisanaya marka shabaabkii in loo shaqeynay ayaa meeshaas ka dhalatay waxa kala dhacay hay'adihii dastuuriga inay dumeen ama ay samacna baaleen sida labada aqal ee baarlamaanka ah maxaa macna beeliyay baarlamaankii xukuumadda laanta fulinta la xisaabtami lahaa uu macna beelay wax qiimo ah ama miisaan ah labadii aqal ee baarlamaanka maanta kuma laha ama la xisaabtan ah lama kuma laha golaha ee fulinta maxaa yeelay sababtoo ah waxa ayaga naftooda la musuq see loo musuqay waxa loo musuqay horta todobaatemeeye ayaga kamid ah wasiirada laga dhigay oo waxa la geliyay golaha xukuumadda labo jagooyinkii dawladda la magacaabay waxa lagu shardiyay in xildhibaanada la siiyo ama dad ayaga keensadaan la siiyo saas daraadoodna looga bedesho inay la xisaabtan la imaanin hadii safiir la bixinayo hadii taliye la bixinayo hadii sargaal la bixinayo hadii gobol la magacaabayo hadii waxaan ku sheegay gobolka la magacaabo dabcan waa banaadir mid kala maana hadii maaragtay la sameeyo waxaan ku sheegay jagooyinka agaasimayaasha kulli waxa qoorta looga xiray si musuqmaasuq ah xildhibaanka in la yiraahdo waxa keenso laakiin waa ina aamusta adigan lama hadli kartid marka dawladda waxa loo isticmaalay awoodeedii in lagu aamusiyo xildhibaanadii oo danahoodii looga xiro qoorta 7 kamid ah xildhibaanada laga dhigay waxa laga dhigay golaha wasiirada ku dhawaada lagu daray marka maxaa soo baxay baarlamaan cadilan oo aan shaqaynaynin oo aan xisaabtami karin sababtoo Soomaaliya waxay tiraa af wax cunay xisho musuqmaasuqa iyo laaluushka markii wax la ridaayeen magaaladan ma qarsana markii gudoomiyaha baarlamaanka la ridayay ama markii la rabo in wax la marsiiyo lacagaha la keeno iyo oo kaashka ah oo dawladahan khaliijka qaarkood laga keenana dadka Soomaaliyeed way cadahay marka maxaan u haysanaa dadkii Soomaaliyeed ka aamin baxeen xataa mu'assasaadkii ama hay'adihii dastuuriga yaraa ee u dhisnaa oo maanta la isweydiinaya dalka horta baarlamaan ma leeyahay la isweydiinayo waxaan maraynaa in ciidankii Soomaaliyeed ee yaraa hortood la unkay loo adeegsado in deegaano nabad ah oo shabaab xor ka ah in colaado beeleed ama qabiil loo aruuriyo gobolka Gedo waxa ka socda waa colaad qabiil qof Soomaali ka qarsan tahay male odayaasha hadla deegaanka ah saakadana ay ugu dambeysay kuwa dowlad ku hadla aan dhageysanay waa wax qabiil ah waay oo qabiil loolan qabiil dhexdiisa ah waay oo Soomaali ay wada ogtahay waxa sayaab leh wargedo ilaa 90kii loolanka waa ka socday mar Itoobiya itixaad isdagaalaan mar jabhadii SNF itixaad isdagaalaan mar qawaa'isha dhexdooda isdagaalaan cid ka guuleystan lama hayo waxa aan la yaabana wiilasha xamar diyaarada loo qaaday ee gaarida tikniika inta loo qaado gedaa lagu qabsanaya la leeyahay xigmadaas meesha ay ku jirto ama dawladnimo ay u jirto wax la yaabo waa wax lagu soo qasaari doono wax faa'iido oo laga keenayan malaha laakiin ujeedka dhan muxuu yahay in lagu dumiyo maamul goboleedka Jubbaland lagu dumiyo marka maxay noqonaysaa Jubbaland waxay resource iyo dhaqaale iyo tabar haysato inay isku difaacdo dawladana wixii dhaqaale iyo resource iyo canshuur ay ka qaadayso dadka reer Muqdisho halkaas ay geliso ayay noqonaysaa wax laga faa'iideeyna ma jirto amniga iska warsameeyna meesha uu marayo madaxweynaha safarkii ugu horeeyay oo uga baxo xamar wuxuu ku tagay magaalada Baydhabo saa ogtihiin wuxuu ballan qaaday inuu furi doono wadada Baydhabo ee isku xirta Muqdisho ilaa hadda waa sugeynaa furitaankeeda balse way xiran tahay marka ciidanka jooga waxa raashinka loo marsiiyaa badda xeebta jidka lama mari karo
jowhar taad aragteen oo wasiirada ay qireen oo markay galayeen doorashada xildhibaanada ay wasiirada xukuumadda ka tirsan ay qireen inay 6 jeer habeen maalin tagayeen maanta inaad diyaar ku tagto maalin waqtigaad kuma tagi kartid magaalada muqdisho way kala xiran tahay oo galbeed iyo bari u kala xiran tahay ama waqooyi koonfur ama 10 isbaara dhex taala oo la leeyahay danta dalka amniga ku jiro qaraxyadii ugu waaweynaa dalkan ee dadka ugu badan ku dhinteena intay talada dadka hayeen ayay dhaceen oo la socotiina kii ex control ka dhacay ama kii ka horeeyay ee sooba ka dhacay qaraxyada dhacana waa joogto hoteeladii magaalada ugu muhiimsanaa kulligood waxa loo xiray weerar al-shabaab waay oo saxafi iyo Makka al-Mukarrama ay kamid yihiin iyo ambassador hoteeladii ugu waaweynaa waxay u xiran yihiin maanta waa weerar al-shabaab iyo qaraxyada u xiran yihiin canshuurtay qaadaan shabaab horaan u sheegnay magaalada ka qaadaan hadda waxay gaareen inay magacaabaan boosashinada iyo xilalka inay magacaabaan ay gaareen wax ka magacaabaan amni iskaga sheekeemayna meesha maanta uu joogo ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa maalintii ugu horeysay ciidamada AMISOM la shiray oo shirka la qaatay wuxuu yiri dalka waxaan rabaa 2 sano in shabaab ugu xoreeyo sargaal kamid ciidamada AMISOM isla hadalnay oo saraakiishii meesha fadhisay markaasuu yiri waxaan la yaabnay madaxweynaha 2 sano shabaab dalka ugu xoreynayo namana weydiin waxaan haynay waxa isaga haytoonas ma weydiinin marka fiiri mas'uuliyad darrada faham darrada xilkasnimo la'aanta dalkan lagu soo wada 3 sano iyo sanadka dhimana dabcan ayaga iskale waa mandate-kooda ku sii joogi doonaan wuxuu saameyn taban ku yeelan doonaa afarta soo socotay afarta ka dambaysa ee mustaqbalka intaba amni meelo maray iskaga sheekeeyeen siyaasad maanta meelay maraysan iskaga sheekeeyeen arrimii federaalka waa la socotaan maamul goboleedkii Jubbaland iyo dawladda dagaal colaadaba ka dhaxaysaba waa maqlayseen maamul goboleedkii ugu weynaa dalkan ugu qadiimsanaa shalay madaxweynaha inuu lahaa ay ka tashi ugu baaqay dadkiisa ee deegaankiisa iyo mid Soomaaliyeed ku baaqay anaga waxaan ku qasbanahay haddaan saaminada siyaasadeednahay intay beesha caalamka dhex geleen ayadaa imaad doontay xaalad dalkan ku jira gobol Soomaaliyeed la fidiyo anaga kulliye diyaaran u nahay inaan ka qayb galno haddii gobol Soomaaliyeed oo ayaha Soomaaliyeed looga tashanayo waana soo dhaweynaynaa ay ka talisay maraysa haddeertaan Puntland isaga sheekeeymayna South West meesha ay marayso iyo Galmudug waxaan rabaa inaan dib istaago arinta Galmudug waxay soo martay marxalado kala duwan waxaan aad iyo aad u jeclayn madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna markay wada joogeen inay ayaga wada jooga maamul halkaas ay ka sameeyaan oo ay noqdaan dad ayaga isku tashada oo ayaha iyo masiirka deegaanka Galmudug ka tashada dadka reer Galmudugna ay aaminaan nidaamka federaalka inuu yahay maamul goboleedka inuu asaga sida dastuurka qodobkiisa 132 uu qoraayo in waxa maamulaya doorashada iyo hab doorashada ay tahay dowlad goboleedka Galmudug nasiib darasaas ma aysan dhicinin ayaga iskhilaafay ayaga dowladda federaalka ah siiyay mandate ay salahayn oo dastuurka siinaynin awood oo dastuurka siinaynin gacanta u galiyeen ayagoo isdiidan ama ayagoo iskhilaafsan waa uga dignay waan u sheegnay inaysan ayatiga Galmudug u fiicnayn maanta waxa soo baxday marka dawladii markii gacanta loo galiyay oo lagu soo dhaweeyay meesha in la yiraahdo dawladdu waxay sameysay way qaldanaay wayna noo muuqatay dawladdu inaysan marna sameynaynin wax ay raali ka yihiin dadka reer Galmudug dawladda hal mar ay sameysay waxay dadka reer Galmudug raali ka yihiin waa doorashadii madaxweyne xaaf markii la qabanayay March May mise March mid ma garanay 2017 markaas faray ka qaaday Galmudug doorashada meeshaas ka dhacday ee dhowrka qof ku tartameen madaxweyne xaaf iyo professor Shirwac iraga ka xasuusto doorasho waxay iska ahayd si degan oo nabad ku dhacday dawladda ay safar gashanin sida aan ka rabno waxay ahayd dawladda inay reer Galmudug isku dayso ayaga ay maamulaan laakiin madaxdii iyo hogaankii Galmudug ee markaas joogtay anagoo uga digayna ayaga soo dhaweeyay dawladda meesha keenay ayaga talada gacanta u galiyay maanta marka waxaan rabnaa marka waxa meesha ka soo baxay iyo ninka odayga ah meesha ka soo baxay ee aan ognahay sida uu ku yimi hadeerta inaysan ahayn si la isku wada raacsan yahay oo ama sharci ah ama doorasho xalaal ah aysan ku dhicin laakiin waaqaca meesha ka soo baxay ina intaan ka badan Galmudug si xamili karin inay dagaal ama gacan ka hadal gasho in arintaas lagu dul dhiso dib u heshiisiin iyo wada hadal asagana oo noqdo nin danta Galmudug iyo dib u heshiisiinta Galmudug ka shaqeeya oo san la imaanin dhaqankii lagu yaqaanay nabad iyo nolol ee ahaa ama kooxda ee Villa Soomaaliya boobka iyo khilaafka iyo mushkilada aasan ahayn waxaan rabnaa marka in halkaas laga abuuro fursad lagu wada hadlo oo ahlu sunna oo qayb ka ah jiritaanka ama nabadeynta deegaanka Galmudug
iyo madaxweynihii hore xilka haysta ee galmudug in intaba lagu wada hadlo meeshaas oo wada hadalkaas halkaas uu ka dhaco ayaan rabnaa sidaas oo kale annaga sideedaba xisbiga wadajir haddaanahay kama soo horjeedo dowlad goboleedyada midaan jecelnahay iyo midaan necabnahay ma jiro laakiin waxaa ka soo horjeedna waxaa waaye dhaqanka foosha xun ee qolada talada haysa ee dalka ku haysa waaye meeshii marka dhaqankaas iska yuraysa oo gacmaha iska celisana ama ayagaba dowladdu iska dhaafto inay faraha gashato sidii hadda ka horba hirshabeelle iyo samaysay iyo galmudug labadaas doorasho markii hore ma aysan fara gashanin annaga waa taageersana inaan doorashooyinkaas la fara gashanin qoladii iska yuray sida Puntland iyo Jubaland yaa iska dhaadane waa ku taageynaa sababtoo waaba sida saxdaaba dawladdu inay fara gashto ma laakiin qolada ayaga keeno invite gareeyo oo ku soo dhaweeya ee wilaayada ku wareejiya idinka maamula qoladaas ayaga mas'uuliyadda iskale eedan ayaga iskale waxa aan haysanana dadka madaxda ka ah ama madaxweynaha South West ahaado ama madaxweynaha hadda jooga galmudug ahaado annaga waxa aan haysan ayaga shakhsiyadooda ma waa sida ay wax ku yimaadeen ayaga waxaan kala xisaabtamaynaa waxa ay dadkooda iyo deegaankooda dibooshisiinta iyo wixii dawladda ay ka sameysay falxuma siday u dhayaan iyo say u hagaajiyaan waaye waxa aan kala xisaabtamaynaa saas daraadeed waxaan u baahanahay hadda in Hirshabeelle la sameeyo guddigeedii doorashada ee madaxa banaana haddaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu sameeyo ana berina la dhihin Hirshabeellena wilaayadii waxay ku wareejisay wasaaradda arrimaha gudaha sababtoo falxumada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda federaalka ah waan aragnay waan u jeednaa waxaan rabnaa marka dalku federaalkiisiina halkaas uu maraya wuxuu marayaa in la kala tago wuxuu marayaa in ayatiinka tashiyo maraya wuxuu marayaa beeshii caalamka inay dhahaan hal la isku yimaado warqadda ka soo baxday ee safaaradda Mareykanka waxa ka maqan kaliya waa dheydkii iyo venue-gii taariikhdii iyo meeshii lagu shir lahay waa marabna marka inay dalku heerkaas oo ku sii socdo waxaan ka fadilaynaa gogasha Soomaaliyeed ee cid Soomaaliyeed ee dhigayso oo ayatiinka Soomaaliya looga tashanayo inaan qayb ka noqono ayaa aad iyo aad aan u fadilaynaa dalku ma aha sida aan u sheegay aan ugu qiimeynaynin ballanqaadkii madaxweynaha oo baarlamaanka hor sameeyay aan u arko wax weyn oo macno laha dalka wax ka taray oo san ahayn yaanan anigana qiimeynteeda ku dareynin taalo meel la suray ama maaragtay dhismo meel laga furay ama maaragtay meel lagu dhisay isxilqaan way fiican tahay waxyaalaha noocaas waxa dalkan lagu qiimeeyo horumarkiisa ma aha ama nin odayaan qaabilay oo hebel la yiraahdo ama intaan maray waxaas wax macno leh oo dalkan waxa mushkilad dhex yaala iyo halka laga rabo dalkan wax ka keenayo ma aha waxaan rabnaa marka inaan dhowr baaq aan soo jeedino dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga waxa la rabaa dawladdu Soomaaliya waxay ku taagan tahay laba arrin dhowr jeer horena waa sheegay waxay ku taagan tahay waa xuduudda ciidanka AMISOM iyo muruqa ama taageerada diblomaasiyadeed ee beesha caalamka ah kuma taagna dadaalkeeda ama taageero ay kursi ka haystaan kuma taagna taageero ay shacab Soomaaliyeed ka haystaan kuma taagna taageero siyaasadeed dad ama legitimate sharciyeed dad Soomaaliyeed ka haystaan kuma taagna waxa ay ku taagan tahay oo isku haleynayso waa xuduudda AMISOM iyo muruqa diblomaasiyadeed ee beesha caalamka ay leedahay labadaas ayaa waxay keentay inay si dhaqan xumo ah ay ula dhaqanto dadka deegaankan jooga Muqdisho ay ula dhaqanto maamul goboleedyada dhaqan xumaas ula dhaqanto waxa dhiirigelinaya dhaqan xumadana waa taas marka waxaan rabnaa inaan ogaano dulqaadku waa inuu ku saleysnaadaa kaliya inta danta iyo maslaxadda Soomaaliya laga shaqeynayo haddaanan danta iyo maslaxadda Soomaaliya laga shaqeynaynin dulqaadku wuxuu isku bedelayaa dulli dadkaanu dulliyo ma aqbali karaan cid dullino aqbalaysaana ma jirto dawlad goboleedyada qaarkoodna way iska diideen annagana waxaan ku qasbanaa inaan dulaysiga ama dullinimada aan iska diidno sidaas daraadeed u baahan tahay sida dadka kale ayooda uga tashanayaan dadka Muqdisho joogeen ayahooda inay uga tashadaan oo la fiiriyo halka aan ku socono iyo halka qoladan meesha joogto noo wadaan inay dadka deegaankan ay dan u tahay iyo inaysan dan u ahayn in la iska warsado oo ayatiin laga yeesho oo talo laga yeesho ayada nafteeda ay u baahan tahay maadaama Soomaalida inteedii kale inay tashanayso ay ka wada hadashay annaga nafteena inaan talo aan iskaga nimaadno ay u baahan tahay waxaan leenahay dawladdaanu 3 sano ay jirtay way fashilantay muhiimooyinkii ugu waaweyn dalkan loo xilsaarana way ku fashilantay dadkiina way kala irdhaysay maantana waxaan joognaa meelan kala irdhaysanahay oo dadkii Soomaaliyeed in hadda ka bacdi isku baadi goob ay taagan tahay oo aafada iyo dhibaatada ay geeyeen iyo dhaqan xumada ay abuureen
oo ah inay boqolaal kun oo doolar ku bixiyaan inay dadka la aflagaadeeyo inay malaayiin doolar ku bixiyaan in xoog lagu qabsado deegaano nabada in shabaab loo shaqeeyo oo maanta aan kala garlaanahay hay'adihii amniga iyo kuwii shabaabka aan kala garlaanahay oo cid shabaab cid aan shabaab ahayn maanta aad ka shakisan tahay markii lagu weydiiyo xagee ka timid ID-gaaga keen identity-gaaga yaa waaye aad qof ku dhiiray kaliya xataa inaad ID-gaaga ama identity-gaaga ama aqoonsigaaga aad tusto oo wuxuu yahay aadan aqoonin waxaasoo dhan waxaa ka mas-uul ah oo mas-uuliyaddeeda iska leh waa madaxweynaha la doortay inta kale asaa magacaabay saas daraaddeed annagu xisaabtankeena kuma wajahna dad la magacaabay kuma wajahna inkastay mas-uuliyadda wax kula yihiin laakiin ciddii la doortay ee mas-uuliyadda dalkan loo doortay ayuu ku wajahan yahay waxaana ayaan darro ah marka aad fiiriso kabineetka madaxweynaha oo asaga dadka la taliya ama asaga ku hareeraysan ama talada siiya ama go-aanka uu kala go-ane niman dhallinyaro ah oo ku mashquulsan waxa social media lagu qoro iyo waxa Facebook lagu qoro kaliya inay yihiin oo waxa noo muuqda dad xilkas ah oo wax garanaya oo dowladnimo wax ka fahamsan ama qarannimo wax ka fahamsan ama taariikhda dalkan iyo dadkan uu leeyahay wax ka fahamsan inay meesha aysan joogin wiilashaas yarkaan ay yihiin waxa madaxweynaha oo la tashado oo ku caqliga yahay oo ku garaadka yahay oo ku mustawa yahay ay kuwaas yihiin waa ka xunnahay Soomaali marka waxaan leenahay haddii ay ka tashi iyo badbaado la isugu yeeray waa xilli fiican waa waqtigii la qaba lahaa inta uu ajnabi la isugu kan yeerin ina annaga iswacno annaga aan tashano aayaha ka tashanana waa arrin loo baahan yahay waa maasintiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.